السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج دير الحاج حول الله وسلام. حالك هذا والله الحمد لله waxaa laga daaweynaya dhaawacyadii muuse ii geystay marka dhaawacyadii walaal iskaan baa lay saaray taraajooyin baa lay saaray marka dad badan ciyaar iyo qosol iyo faan bay u qabeen laakiin waxay tahay walaal dhib xun baa i gaaray الله jug aad u xun baa الله كعافية حاج تافكك ما هو جيسته حاجة كبحين waaye inaad rabaday waaye kaa saari maaya nabaday waaye أفكك ما هو جيسته حاجي haye waaye nabaday واي يا دكتور سلامين الله كعافيته waaye kaa saari maayo waa ku xurmaynayaa nabaday assalaamu calaykum أي waaye assalaamu calaykum waaye assalaamu calaykum marka walaalayaal alxamdulilah iskaan baa lay saaray feeraha madaxa meelo fara badan lugaha dhaawacya iga gaaray madaxa jug xun baa iga gaartay feeraha marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ma dhiman waa noolahay muhiimadda waxa weeyaan arrintaas xun oo walaalayaal dhacday oo loo baahan yahay in dadka muslimiinta aysan dhibaato isu geysan hadda ma dhiman laakiin haddaan dhiman lahaa adeerkay muuse muxuu ka dheefi lahaa sumcad darro sharaf darro karaamo darro qof muslima oo walaalkiisa oo ehelkiisa yaa la ku jeesjeeso oo dilo amxaaro u gacan gelin oohin baa i qabata markasta oo soo xasuusto reer hargeysa khayr allah idin siiyo waa idin jeclahay walaalayaal wallaahi billaahi waa idin jeclahay soomaali idinka idin jeclahay weligay idinma halmaamahayo axsaankaad ii gasheen soo dhoweyntaad ii gasheen ehelnimadii walaalnimadii tolnimadii weligay idinma halmaamayo dad idinka sharaf badan weligay ma arkin khayr allah idin siiyo alxamdulilah hadda muusane soomaaliyay anugu meel walba la istaagi maayo waa lay xasuuqay nin raga weeye waa i dilay walaalkii weeye xaarana anigu u geli maayo imaaraadna u geli maayo dal iyo dadna iyo diinna anu gadi maayo walaalkii dhib buu ii geystay saasay tahay oo walaalkay khaldamay weeye feeraha kama qosli kara hadda inaa lilahi marka aniga waa lay xasuuqay hadda dhihi maayo marka taas dib baan ugu soo noqonayaa waxaan xasuusinayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto soomaali weyn dowladda maraykanka gaar ahaan kongareska ayaa u fadhiya maalmahan oo dhan xasuuqa iyo xadgudubyada dowladda etoobiya ay ku hayso shacabka masaakiinta ee dalka etoobiya dadweynihii waa arkay
marka waxaan la yaabanahay dadka oromada iyo xabashidu kacdoon xoog leh bay ka wadaan dalka Maraykanka oo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda u hadlaayaan. innaga Soomaalida dalkeennii Soomaali galbeed ogaadeen iyo xoog baa lagu qaatay. hase yeeshee Soomaalida masaakiinta ee halkaa lagu gumaysto xuquuqdooda inay u doodaan waa ka aaminsan yihiin. Kongareeska waa u fadhiyaa. waxyaalaha la isku waafaqo waxaa ka mid ah Ethiopia waxay ku doodi jirtay oo ay ku Maraykanka iyo ay ugu goodin jirtay waxaan ka baxayaa barnaamijkii la oran jiray counter terrorism yaan ka baxayaa Soomaaliya yaan ka baxayaa meeshaas argagixisada lagala dirana Soomaaliya waa been Soomaaliya la qabsanaya. marka Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda iyo mar kasta oo reer galbeedku ay wax ku cadaadiyaan ama danahooda ka galaan waxay dhahaan Soomaaliya ka baxaynaa. Soomaaliya fadhiga ka kaca. Soomaaliya gudaheedana waa ku dhibanahay oo waxaan noqonay wax lagu gorgortamo Afrikaanka xukunka ahaa Ethiopia iyo Kenya annagii markii dawladihii gumaysanayay ay u cagajuulayaan ay dhahaan wallahi Soomaaliya waa ka baxaynaa. wallahi Soomaaliya gumaysiga annaga idin ka dagaalana annaga idin gacan gelinay annaga idin xoreynay waa ka baxaynaa. waxaan ummadda Soomaaliyeed marka ku nool ogaadeen iyo ka codsanaya waa loo fadhiyaa qararaxno adag baan laga soo saarayaa in la xiro lacagahooda la joojiyo Interpol la xiriiriyo askarihii gobolada kuwii xukumay kuwii ururka xukumay in la soo xirxiro in dadweynaha meel kasta lagu xiro lacagahooda la xirxiro. waxaan marka la yaabanahay dadka Soomaalida ee ku nool ogaadeen oo la xasuuqo oo jeel ogaadeen loo samaystay oo la iska xasuuqo iska aamusan waxaan aqal xataa hay'adaha xuquuqul insaanka iyo international world aan la xiriireyn oo dhibka lagu hayo aan dadweynaha gaarsiinayn. waxaan ka codsanayaa dadka kan hadda Soomaali khiyaanay oo ONLF madaxdeeda ah oo u badan dalka Maraykanka iyo dalalka Yurub sida dalka Ingiriiska oo madaxda oo khaayiniin ah inay calal aqalli bal dadkaas malaayiin iska gurta ilaa luusho ayaga laftigooda double agents oo 59 ay u shaqeeya inay dadka masaakiinta oo la xasuuqaya ay ka doodaan oo hadda loo fadhiyo arintaas inay ka kacaan oo bal oromada iyo amxaarada iyo ay la xiriiraan ila dad ma ayagu daanyaro weeyo dad maaragtay yani nool oo bani aadam oo hadli kara ma aha in la soo xirayo waa aaminsanahay 99%. iyo booliska dhibka ay ku hayaan Soomaaliya gudaheeda iyo Soomaali galbeed isaaq bay xasuuqeen anfar iyo ciise iyo boolisku xasuuqeen shiikhaal bay xasuuqeen garay xasuuqeen bareexaan bay xasuuqeen ogaadeen bay xasuuqeen iyo boolisku hawiye xasuuqeen gaaraan abargidir iyo boolisku xawaalda xasuuqeen iyo boolisku raxweyn bay xasuuqeen iyo boolisku murulley xasuuqeen iyo boolisku orom bay xasuuqeen. marka waxa weeye iyo boolisku yani dhulbaantay xasuuqeen iyo boolisku jarteen bay xasuuqeen iyo boolisku yani leelkasi xasuuqeen iyo boolisku qabiil aysan xasuuqin oo muslima oo Soomaaliyeed ma jiro. Soomaali sacad bay xasuuqeen Saleebaan bay xasuuqeen Cayr bay xasuuqeen qabiil aysan xasuuqin walaalayaal ma jiro. waxay xasuuqeen digil iyo mirifle waxay xasuuqeen dilay ku jareer waxay xasuuqeen war qabiil aysan xasuuqin ma jiro. waxa la inooga baahan marka oo soo noqonaya Muuse Biixi iyo dhaawacyadii uu geystay oo aan isbitaal dalka Maraykanka la iga daaweynayo dhibkii xun baa iskaan baa la saaray madaxa jubba iga gaartay xun ilaa qaarkood jid baa fadhiya walaalayaal dadku iska ciyaaraan waana iska qoslaan qori la isla dhacay looto iyo feer jirdil xabsi darbi madax loogu garaaco qofka dadka qaarkood ciyaar bay u haystaan. marka walaalkay Muuse dhib xun buu geystay ciidamadii SNM dhib xun bay geysteen falaagada ah amxaarada ah waana wax la wada jeeday oo Soomaali weyn u jeeday haddaan caawa dhintana jugtaas ayaan u dhintay Muuse Biixi geystay dhib xun baa gaartay waana walaalkay garbaana u dhiganayaa walaalkay weeye gobol baan u dhiganayaa caay mahay ceebeyn mahay ambaarayn mahay sharaftiisa iyo magaciisa waxba u dhiman mahay
walaalkii waa idilay gar baan u dhiganahayaa iyo gogol ha iga garbaxo dhib buu ii geystay jug buu ii geystay waa idilay ha iga garbaxo walaalkay wuxuu igu dilay waxaan u dhimay waxaan ka galabsaday waan imid dalkaygii iyo dadkaygii baan u imid muuse anigu reer berberaanahay muuse ma aha abi isir baan u ahay deegaanka sacad muuse og ciise muuse og habar yuunus baa og habar jeclaa og xaaji dabacsan waa la yaqaanaa reer cadan buu ahaa reer berber u ahaa dadkii berbera asaasay buu ahaa marka ilaahay hadda deegaankanagii iyo guryahanagii wallahi nin maalin dhawata iga soo wacayay inta u dhaartay guryihiinni baan taagnay guryihiinni berbera ayaan hadda taagnay waraysana waan la yeelnay maalin dhawata ninkaas haddana maxaare iyo maaragtay lagu wareejinahay iyo wax daran iyo imaaraad ma yeelayo anaana ka dagaalamahay si sayid maxamed uu yiri yaa canshuurta inka qaada ingiriisow baan u leeyahay ingiriis Ethiopia iyo imaaraad ma qaadanaya dowladda Soomaaliyana lacagtii 10 milyan ahay oo dowladda imaaraadku ay rabtay baarlamaanka iyo Soomaaliya inay ku burburiso waa ku mahadsantahay inay qabatay waxay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadku maantay in diyaarad madani ah oo civilian laga qabsaday oo 10 milyan waday oo u waday ciidamada Soomaaliya ee imaaraadku ay tababarto heshiiskii ay dowladda imaaraadku la gashay 2014 xilligii xasan sheekh maxamed heshiiskaas baadil buu ahaa ka kacab uu noqday xaaraan buu ahaa salagiyada ha la xiro dowladdu dalka amnigiisa la wareegto sidoo kale 11 xubnood oo guddiga hay'adaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda gudaha amniga ee United Nations leeyahay horumar bay lala sameeyay guddigaas waxaan leenahay United Nations wanaag nooma soo wado igad nooma soo wado Union nooma soo wadaan Afrika nooma soo wado Soomaaliya Soomaaliya walaalooba Soomaaliya isjeclaada Soomaaliya sunnaxa Soomaaliya sutura Soomaaliya cadawgiini idin ma rabaan badan idin rabta male